kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogteen iyo soo noo daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal qurux badan halka si toos ah noogu daawanaysaan waa badbaadasho fadlan subscribe sa janaal haddii aad ku cusub tahay haddii aad ku cusubeen like share comment waxa kula hadlaa waa wiilkeena iyana kala marka loo gurmada caawa muuqaalka aan wada muuqaalada oo ku duwan yahay waa muuqaal aad u xiiso badan waa muuqaal aniga xitaa iga yaabi marna iga qosliyay marna iga yaabi waxaan filayaa inankana sidoo kale marna in la yaabi doontaan marna aad ku farxi doontaan aad qosli doontaan macnaha farxad ma ahan qosla taala macnaha marna aad qosli doontaan marna aad la yaabi doontaan okay muuqaalka muxuu yahay waxaa ka dhacday dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Utah ah wiil da'diisa ay jirto 15 in isaga iyo hooyadiis ay isku dhaceen kadib markii uu ka codsaday gaari joogo 180,000 inay u iibiso sababtoo waa shan jir wax uu hooyis ku dooda inay u iibiso gaari qiimihiisu uu marayo 180,000 kadib markii ay ka dhaga adeegtay isla markaa arrintaas ay ku gacan saartay hooyadii wuxuu sameeyay xanaaq kadib in gaarigii aabihiis oo guriga yeelay furihiis in uu helo kadibna uu ku rogtay markii uu baxay uu dhaqaajiyay 5 daqiiqo ayuu u jaray guriga kadib halkaas waxaa ku qabtay kaalin shaqaale ku taalay nin ka shaqeynayay kadibna uu istaajiyay wuxuu ku yiri maxaa tahay da'adana waa imis sababtoo uu ka shaqeeyay macna uu maleeyay nin faragaab ah kadib wuxuu u sheegay in da'diisa ay tahay 5 sano oo jiro kadib booliska ay u yeeray markii su'aal la weydiiyay wuxuu sheegay in hooyadiisa isku dhaceen kadib markii ay u diiday in ay gaari 180,000 oo jooga u iibiso kadibna gaarigan soo qaatay sababta gaariga soo qaatan waxa ay tahay oo ogayaa gaari isaga inuu lahayn laakiin ay tahay in uu tago gobolka California halkaasna uu gaari ka iibsado lacagta oo wato ayaa la weydiiyay inta ay lag tahay maadaama ujeedkiisu uu yahay in gaari uu soo iibsado $3 ayuu telefoonku ugu jirtay $3 waxyaalaha la yaab kale sababtoo ah ninkan xanaaqay gaari faraha ku rogtay oo $3 wata ma aha marka muddo la yaab kale waxa ay la yaab kale mid waxa ay tahay 5 jir sidee ayuu ku xaystay gaari 5 jir sidee ayuu gaari ku xaystay waa arrinta la yaab kale maxaa la dhahay dunida oo dhan ka yaabisay arkiin ku dhigta akriyo wada fikirada arkiyo waxa waay hikaas nin weyn waa bad isku daray dadkan gaalada oo keenayaan nin feer weyn ah baash jir waay dadka sawirkiisa sawirta arkaan sawirkiisa kan sawirka fiirsada sawirka kan ninka waxaan weeyay wajiga lagu qarsan yahay ma aqaan wajiga sawirta lagu soo qarin taas ay fahmo waay shuluq waa xariif waay marka waa arrinta la yaab kale dunida dhan xilligan warbaahinta waaweynka qoraysa sida Reuters qortay AP iyo sidoo kale BBC-da waa warbaahin caalami ah ayaa qoreen marka waa arrin maxaa la leeyahay marna ay qoslisay marna waa la yaab sababta marka ay qoslisay waxa ay qoslisay $3 oo gaari uu soo iibsana macna waxa ay la yaab ku badneed iga yaabisay shinjir gaari ka haystay macna kadib markii ka cusub hooyadiis gaari maraya 180,000 in ay u iibis macna waa arrin xaaladeeda xaalad kale ay tahay marka video intaas ayaan rabaa inaan soo koobo waxaan rajeynayaa inaad share garay doontaan kala kici doontaan channelkan subscribe aad saar doontaan sababtoo waa bilash marka ma aqaan waxa aad u halkartaan inaad maxaa la saartaan waa ogahay maalmaha subscribe saad ay u socotaa taagala hay iloobina marka subscribe saartaan gambalelka inaad furtaan waa muhiim marka qisaasna waxay ka dhacday arrinta cajiibka ah waxa ay ka dhacday dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Utah wuxuuna wiilka u xaystay gaarigiisa guriga u disay 5 daqiiqo oo kaliya uu jaray halka uu ku sii waxay tahay gobolka California uu doonayay halkaas inuu gaariga soo iibsado iyadoo xilligan la ogyahay in dalka Mareykanka inta badan ay kala xiran tahay inkastoo gobol gaar ah ilaa 19 gobol oo socodka la fasaxay inta badan iyadoo xadidan tahay waa maasintiin daawashadan muuqaalkan ka xigay inta aan dib u kulmi doono waa walaalkan badbaadada sidaas iyo nabad sawirka soo aadano ama screenshot qaadto ku soo dib waxta BBC muuqaalana soo galiyaan screenshot qaadana